anigoo Axmed Cabdulqaadir Cali Boolaay ah oo maanta da'deeda ay tahay 70 jir oo reerka ilma Cabdulqaadir Cali Boolaay uu weynahay aabbahay Cabdulqaadir Cali Boolaay baa la yiraahdaa Ilaahu naxariisto qabrigiisa Ilaahu waasiciyo jannada firdaws Ilaahu ka waraabiyo bacdigiisa Ilaahu mana fidneeyo aabbe wuxuu ku dhashtay magaalada Muqdisho 1933 wuxuu ku dhashay gaar ahaan xaafadda Xamarweyne xaafadda reer Malaaq meel la yiraahdo SYL wuxuu ku biiray 1946 si uu noo sheegay hooyadiis noo sheegtay 1946 waana yaray 13 sano jiri markaas uu ku biiray dadku wax u qorqori jiray quraankiisa wixii aftalyaanu ku hadlay markaas taasna waa markii hore waa ka tagay marka alxamdulillah bil caalamiin SYL saas uu ku galay ilaa oo tawrada ay ka timaado SYL uu ka tirsanay dad badan oo maanta oo magac leh ilaa uu naxariisto oo dhinteen ayuu isla shaqeey jireen sida maaragtay Maryam Mursal aabaheeda raajis iyo dad kale wuxuu maaragtay la shaqeynayay urur shaqaaleed oo laboratory SOMALI la dhihi jiray meel kastuu geeyay isbitaalmente marka iyo xamar iyo meel walba xamarna xafiiska wuxuu ku yaalay xaafadda Xamarweyne wuxuu maaragtay galay journalist oo noqday wuxuu qori jiray journalka la yiraahdo Corriere dello Somalia of Talyaani ah journalkii markuu ka shaqeynayay waxa loo diri jiray gobolada dhan buu ka soo qori jiray wax walba suxufi uu ahay wuxuuna ninka uu horeeyo wasaaradda warfaafinta ay qorto ururka shaqaalaha Soomaaliya markuu memberka noqday codka shaqaalaha ayuu journalku ku soo qori jiray xidigta October la yiraahdo maalin usbuuc kasto hal maalin maalinta talaadada ahayd oo soo qori jiray usbuucaas markuu journalku codka shaqaalaha uu soo bixiyo urur shaqaale waa la shaqeey jiray journalkan waa ka shaqeey jiray journalka xafiiskaas ka bacdi waxa la dhisay madbacadii qaranka wiil waa la sii waday luqadii Talyaaniga socotay luqadii Talyaan markii socotay waxa dhalatay magaciisa tawradii oo siyaad bare ayaa dhalatay tawradii si fiican oo la shaqeeyay wiligiisana qabiil kuma dhaqmin Somali ilaahay ma ardi qabrigiisa waa sax loo dhigo dardaaran badan oo bixi waxa lagu xasuusan karaa waxa kaloo lagu xasuusan karaa aabihiisa Cali Boolaay nin magac leh oo ahay waxa laga soo jibiyay dhul ku yaala Viejito waxa la sii waa berina meeshii magacu u yaali duqa alxamdulillah bil caalamiin masaajidka Cali Boolaay iyo ceelka Cali Boolaay iyo suuq Cali Boolaay loo bixiyay xaafadaasiti magacaasitine magac oo aabba sameeyay waay aabbo waxaasoo dhan duqa wuxuu ku soo koobay buug qoray buugiisana halkan oo ka muuqdaa buuggaasina waxaan u maleynaa dad badan oo Soomaali waa akhristeen wax badan laga fahmay halgankiisa waa dheeraa Ilaahu naxariisto anaga waxaan nahay 15 qofood oo 3 habar kala dhashay alxamdulillah bil caalamiin 15 waa noolnay wax baan sii dhalnay waxay waxbay sii dhaleen alxamdulillah bil caalamiin